السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داودياشا ندا قيمة هي قدرتها مدن كل وكالة وركة وقادينية أنا كسود هذا ورئيسي هي فلانقين سوجرو أو ديرته كسارين أو حالها وقدم بهي كسر عصبون هذه دولة دجان كالصومالي ده يسلو كلام إثيوبيا تعصول لحري دارمها حساس سياسية يو شيء شوين كأنه كان عيان هلكا دور شوين حتى بقى أنتوا برامج كأنه صعدوا وحان بر فلانقين كوبن كوي دين دونا سياسيين كترسن حزبية قلها أي كتشجع الصوماليات أو كلا صعدة أوروكا جبهة ودنيا كفرنتا وقاعدين يجوا يسدوا كله سياسي قلها تنتع الصوماليات برامج كان سؤالها توسكا بل وحان كوي دين دونا وحا أي دريميان برشيد الشعب كدولة الديجان كالصومالية يو سياسيين تم معارضكم سيدي وكان واحد اللي سعوديين برامج كانوا قام مصطفى محمد علمي انت بدنا برامج سياسيات او عن فلنقينتن aan ku sameynayno waxaan soo dhaweynayaa marka ugu horeysa bal martida ona waa engineer Ahmed Cabsiye iyo sidoo kale cadaan hirmooge afayeenka ONLF soo dhawaada mudanayaal marka hore waan soo wada dhaweynayaa waxaan toos u galaynaa barnaamijkeena aad baan idinka mahadcelinayaa waqtiga qaaliga ee aad u hurteen ona iyo sidoo kale waqtiyada badan ee dadka shacabka ee Soomaaliyeed aad ku baraarujisaan idinkoo ah siyaasiyiin waqti badan galiyay bal in ummadan Soomaaliyeed ayahooda iyo mustaqbalkooda mucaaradna oo dadku inta badan shacabka waxa u hadla dadka mucaaradka ah walow aynan dawladdu ayna hadda inala joogin iyo dadka aynu rabno inaynu bal ayakana dhankooda ka hadalo marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa engineer Ahmed Cabsiye engineer soo dhawow bal waxaa jira isbedel siyaasadeed idinka isbahaysi baatiin marka balse aad u aragtaan isbedelkan siyaasadeed ee guud ahaan dowladda deegaanka Soomaalida marxalada adag baa lagu jiraa oo kacsanaan siyaasadeeda xarigis siyaasi uu jiraa sidoo kale Ethiopia marxalada adag oo saansaan colaaleed oo dagaal baa lagu jiraa marka bal sayku idin la muuqataa idinku marxaladan ka isbahaysi ahaan qiimeyntiina siyaasigu بسم الله الرحمن الرحيم دي هورتا أفاينك هادين هاد كوه الرئيسو إيقا هرمرو ولالك عدان هيرموغي لكن دي مالي مرحتي عدان إيقا إسوق واتي وإنان كهدلو سؤاشا دي ويديسي والله الواحة وهي هورتا دورشا ميشا كمد عايسو هورتا تاي إنان دادك كاسحان ربا واحد دورشا أهو ميشا كد عايسا مجرتي حولشو واحد ليدا يا دورشا يا دادك إسكاقا خلطا دورشو واحد ليدا هذا wixii loo dareero ee la soo dhajiyo ee qofku uu kaar qaato ee diiwaan dadka la geliyo ee nin waliba kaarku ku codayn lahaa uu haysto ee uu fiilo galo ee uu fiilada isagoo aan cidna xuquuqdiisa dastuuriga iyo xuquuqiisa shakhsiga ah iyo ta islaamiga midna ku xadgudbaynin uu isagu qofka uu dooranayo uu doortaa horta doorasho la yiraahdo tan iminka abiyi iyo Mustafa iyo groupkooda ay meesha ka wadaan xulasha la yiraahdo doorasho lama yiraahdo marka waxaan ku leeyahay horta waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ina dhageysanay iyo dhamaan dadka ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba u cadeeyo afkan Soomaaliga fahmaysa deegaanka Soomaalida doorasho kama dhicin kamana dhacayso hadda ee waxa ka dhacaysa waa xulasho ninba wuxuu doono kor ka soo qorqortay Addis Ababa kuwana xaganay liis uga direen liiskii baa ka saar ka ku dar inta ku soo kordhiya inta dumar ka soo dhiga soo liis gareey intaas aan aqbalay go ahead dabadeetana hadhowna inta suuqyada waxaan la urursado meel lagu shubto baa lagu shubaya horta doorasho ma dhixin marka siyaasad cakiran annaga nooma muuqato ka urur ahaan ee waxa inoogu muuqataa xulashooyinkii mid kamid ah ummadda Soomaaliyeed in laga badbaadiyo ay ahayd iyo tacadiyadii iyo dibindaabiyooyinka ummadda Soomaaliyeed loo dhigi jiray mid kamid ah baa soo socotay wax doorasho ma dhacaysan ka baxo waa maasantahay Ahmed waa kugu soo noqonaa su'aalo toosana waan ku weydiin mar waa la isweydiinayaa inay sida adinku u aragtaan waa noqoto markii dhinacyada siyaasaddu markay saayaan kuwo leh waxaa jira doorasho dhacaysa oo soo taagan oo xildhibaanaan u sharaxanahay sidan baanay kuwaasna ayaguna way jiraan laakiin idinkuna waxa idin qarqaadi doona shacabka cadaan hirmoogan u soo imaanaya afayene sidan uu Ahmed engineer Ahmed sheegay baad adiguna una u sheegtay inayna wax doorasho dowladda deegaanka Soomaalida ka dhacaynin iyo Ethiopia bas ka luuqadan baad adiguna la martay marka su'aasha kuma weydiinayo afayene waxaa jira
si weyn waxa u soo ifbaxaya in dowlad deegaanka Soomaalida ay iska sharaxeen qowmiyada aan ahayn ay la sheegay inay yihiin musharaxiin ay qaateen kaarar ay guddi doorasho siisay qowmiyadaha kale waliba magaalada Jigjiga ee xarunta caasimadda oo meesha sawirka guud ee Soomaalida deegaanka laga fiirsanayay iyo sidoo kale degmada Ceelkarri gobolka Afdheer waxaa jira qowmiyada kale oo iska soo sharaxay oo yiri waxaan rabnaa inaan xildhibaano noqono bal arintaasi waa arrin seewe bismillah adiyo injineerka waad baan salaamaya salaamullahi calaykum waxa weeye sidoo injineerku sheegay weeye horta meeshan isagana guddoonka kamida guddoonka sare ee golaha midnimada aayaha Soomaaliyeed ee ka talin doona aayaha dadka Soomaaliyeed ee dhawaan la yagleelay ee xawli u shaqeynaya waxa weeye haddaan nahay golahaas si cad baan u cadeynaynaa inaan wax doorasho leeyahay dhacaynin dadkan sharaxaya sheegayso ee qowmiyadaha kala ah qowmiyada kala go'aanka naga haysto go'aanka siyaasiga ah laga haysto waxa sheegaysaa nin kaliya oo sharaxay go'aanka iyaga siyaasiga ah madaxda deegaanka naga xataa kuwa iyaga dhaqanka yaa la soo magacaabanaya iska daa wax kale marka waa horaana la bilqaystay oo nalala leeyahay Jigjiga waa nalala leeyahay dhulka iyagii golaha baarlamaankana waa shaqaalahana waana laga qaybsadaa go'aanka siyaasigaana waana laga qaybsadaa dhaqaalahana waana laga qaybsadaa shaqada deegaanka ka jirta ee heer federaal iyo heer deegaanana waana laga qaybsadaa marka dadka Soomaaliyeed horjoogayaal difaaca xuquuqdooda iyo saamigooda ama baarlamaan loo kala ama ku federaal lagu sheega ha ahaato ama shaqo qorid ha ahaato ma jiro xataa habka jaamacadda Jigjiga waad yaabaysaa sidee u tahay baarlamaanka federaalka Itoobiya waad yaabaysaa qowmiyada aanu 5 jeer ka badannahay yaa 5 jeer inaga baarlamaan badan marka ninkan horjoogaha ka meeshan ninkii wuxuu ahaa u hiil waayay Soomaalida iyo isqabteen qowmiyadaha kale wuxuu la safnaa qowmiyadaha kaleesiyadii Itoobiya maxaad ka wadaa cadaani maxaad ka wadaa ninkan horjoogaha ka yaa dowla jeeda waxaan la jeedaa Mustafa Maxamed Cumar baan la jeedaa markii uu ahaa muxuu ahaa exile-ka ku ahaa Soomaaliya uu joogay UN ku shaqeynayay qoraaladiisa haddaad fiiriso markay qowmiyadaha Soomaalida iyo qowmiyadaha kale isku dhacaan Soomaalida khaldan oo weerar ku qaadaysa oo waa ciidankoodii iyagu u marag furahay haddana markaad eegto qowmiyadaha inala nool iyo Soomaalida hadday isqabtaan wuxuu la saftaa qowmiyadaha kale in qowmiyad martiin oo la xukunsado oo la duleeto oo si gunnimo loola dhaqmo sax ma ah laakiin waxa sax ahayn in guryaheena ay nagu qabsadaan qowmiyado kumaanku mayl soo jaray marka doorasho ma jirto oo go'aanka iyagiiba yaa dhacan marka sharaxid iyo Ceelkarri iyo Jigjigaba muxuu way ka soo baxayaan arrinta sheegayso waa maasantahay afeene injineer Axmed bal adise kula muuqataa magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee ahayd indhihii bulshada dowladda deegaanka Soomaalida inay iska soo sharaxaan xildhibaano axmaara iyo xildhibaano Oromo inagoo og in dowladda deegaanka Soomaalida dadka shacabku uu daraato u dambeysay hal mar baa 1,000 bir oo lacagta Itoobiya lagu diray tigirka diyaaradda mana mari karaan dhulka dowlad deegaanka Oromada dhulka ma isticmaali karaan iska daani xildhibaan iska soo sharaxaan dhulka wadooyinka ma isticmaalayaan canfartana sidoo kale wadooyinkeeda lama mari karo marka dadkii basaskooda inuu ku dhex safro basaska lagala degay intii loo yimaado in xildhibaan la iskaga soo sharaxo say kula muuqataa adiga horta marka wax aan ka hadlayno ama aan ka doodayno dadka Soomaaliyeedna ee ina dhageysanaya iyo maamulka babadka ah ee hadda meesha ka jiro hogaamiyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxaan rabnaa wixii scientific inay dadku u eegaan anu marka waxaan rabaa si scientific inaan waxaan u dhigo
Ethiopia waxay ku heshiisay nidaam la yiraahdo federalization oo federaal ah federaalka dastuur baa u yaalay dastuurku wuxuu qorayay qoomiyad waliba iyadaa meesheeda iska soo sharaxaysa federaalkana waa la wadaagayaa oo xildhibaanay u soo dirsanaysaa xildhibaanada qolo waliba u soo dirsanaysa inkastoo sidaa halgamaa caddaan sheegay aan ku dulmanayn haddana waxaan inagu go'aaminoon dirsanayahay haddaba dastuurkii noocaa ahaa intaa dhowr iyo 30 sano ee uu soo jiray hal maalin axmaarna ma hawaysan inuu iska soo sharaxo deegaan Soomaaliyeed iyo deegaan kala toona Oromo iskama soo sharaxi karo Anfar iskama soo sharaxi karo Beenishaangul Gumuz iskama soo sharaxi karo Dhawo Ismo iskama soo sharaxi karo innagana iskama soo sharaxi okay tusaale yar oo waxaan ku tusayaa sida ay u ogoshahay nidaamku iyo maamulka jira ay awood ugu leeyihiin inay yiraahdaan qofkaasi meesheedana kama shaqeyn kara iskama soo sharaxi karaan idin cadeynay hal nin oo darawalaho UNICEF u shaqeeya oo Soomaali ah kilka axmaarada ka shaqeyn jiray baarlamaanka axmaarada ka fariistay oo yiri qof Soomaaliga ah meeshuu ka shaqeynayo waxa u baahan qof axmaara bilaa shaqo ah laga qaado oo hal la geeyo qof axmaara cod baa loo qaaday hay'adii baa loo yeeray ama waddanka waad ka tagaysaa ama waad bedelaysaa baa darawalka Soomaaliga xaq bay u yeesheen dastuurka la eegay way ku xaq bay u yeesheen waana la bedelay waxa ku soo haray marka innaga Soomaalida bal waxaad u fiirsataa axmaarku iskama soo sharixi karo deegaanka Soomaalida wuu ku noolaan karaa xuquuq buu leeyahay meel kastoo Ethiopia qofku inuu ku noolaado waa loo ogol yahay waa sax laakiin iskama soo sharixi karo shaqadana inta uu Soomaali qof Soomaali shaqadiisa qaban karo shaqada ma joogi karo ma aha anigu waxaan samaynayo ma aha wax aan qoomiyad kale nacayba waa wax dastuurka inoo qoran hadda ku yaal hadda waxaan rabaa scientifically dadka inaan hal arrin fahansiiyo waxaa laga guuray dastuurkii nooca ahaa ee TPLFT aan eedeynay ee aan waddankeen dadkeena inay ku tacadiyeen ku eedeynay ahaydna inay ku tacadiyeen waxyaabaha ugu wanaagsanaa ee kaliya ay sameeyeen inkastoo ayna ku dhaqmayn waxa kamid ahaa dastuurka TPLF markay waddanka haystay ma aynan ogolayn qof axmaar iyo qof Oromo jigjigeyn isku soo raxo iyo deegaan Soomaaliyeed toona iyaga u diidayba inta u tagaan kulahayn isma sharixi karto wadaa ordo deegaankaaga tago iska soo sharax marka scientifically halka aan ka baaba'sanahay waa halka systemkii federalization kana waa laga guuray dadku sidaa ugu baraarugsanaadeen waan ka baxay engineer intaana ka bixin cadaanina uu ku halkan uu ka shanqariyay engineer yaa riixaya in ay Oromada iyo axmaaradu iska sharaxaan jigjiga maadaama in xilliga iska sharaxi jirin maxay salka ku haysaa arrintan inay hadda timaado diri dhabo soo ma garanaysa systemkay tahay jigjiga waa diri dhabo qorshaha hadda la diga xoyaan meel kastoo Soomaalida iyo axmaarada iyo Oromada isku hayaan qoomiyadaha kale ee Soomaalidu ay wada degan yihiin shakhsiya yar yar laga arki karo kor baa lagaga soo qasbayaa maamulkan babadka ay hogaamiyo Mustafa inay dad ka sharaxaan sababta la keenay yaa riixaya inaan faano waxaan rabnaa cidda salka ay ku hayso ku eedeynaysan waayo waa Abiy Ahmed Abiy Ahmed baa dastuurkii ka guuray si indirectly centralization waddanka uga dhigaya kana sidoo hogaamiyuhu sheegay way iska caddahay weligiiba wuxuu u nuglaa qoomiyadaha kale danahooda shalay markii blablaynti lagu laayay dadka Soomaaliyeed dhowrka boqol ee qof ah ee la gowrgowracay Mustafa annagoo xisbigii Siraaja waxaan isku qabanay aniga iyo Mustafa waxaan isku qabanay hal eeday iyo lama eedeynayo kadibna waanu ku muquunin in la eedeeyo oo la dhaleeceeyo dhacdaas eedaas waa eed culus raadinaya jawaahir iyo qolooyin lamida eedaas waa eed culus mana joogo Mustafa hadda ina lama joogo marka balbalaynti 40 qof ku dhawaad dad tiro badan oo Soomaali ah maalin lagu xasuuqay marka ma waxaad leedahay wuxuu diiday inuu dadka laga tacsiiyo Soomaalida 65 qof bay ahaayeen oo hal inta meel lagu soo ururiyay la gowracay aniga family ilayhiin barkood anay family ilaahayeen dow Mustafa sidaad guddigoodii oo dhanna way nool yihiin waxba ma dhibanin intaan ogahay waa la weydiin karaa Mustafa wuu ka soo horjeedsaday inaan bayaan cad ka soo saarno on eedayno ilaa markii dambe intaan guddiga fulinta ku fadhiisan aan ku muqoonno ku nidhi shakhsi baa tay albaab ka bax anu maalinta waliba waxaan soo barbasar gariyay in la eriyo
ninka sidan u dhaqmaya in laga eriyay golaha fulinta ayaa soo go'aamiyay laakiin waa laga codbato 5 iyo 4 baan noqon aad baa ma santiin adii cadaani madaxweyne Mustafa waxa ku eedaysan eed culus cadaanina afyeenka oo nafna wuxuu sheegay inuu mar walba la safto marar badan la saftay qowmiyadaha kale markay isleeyeen adiguna wadadii baad martay oo balbaleetii dadkii ku dhintay ee lagu xasuuqay Allah u naxariistay 2018 oo waliba si arxan daraa loogu dilay marka halkaas baad ku eedaysay laakiin waxaan maadaama uu goob joog ahayn oo uu hadda banaalka in la saarayn waa eed dhankiina uu ka timaaday marka I hope inuu iska difaaci doono eediisa waxaan u gudbaynaa markan barnaamijkeena toos sii galaynaa afayene mucaaradka dawladda deegaanka Soomaalidu ama dadka ka aragti duwan mar walba qolada haysata meesha oo wanalaf oo urugobinimo doona oo muddo badan qori ku halgamaysay oo duurka ku jirtay iyo dad kale oo siyaasiyiin oo mabaadii qiyam leh oo adag leh oo mar walba ka soo horjeesada dadka in la xasuuqo in la ummadana aan self discrimination keedana aan ka gurgurtumin ummadana ay ka tishigeeda mar walba jira haddana saas ay tahay mar walba ay xaaladu kululaato ama isbedelo dhacaan kurku deegaanka uu ka baxaa ama waxa la dhihi cuno inta badan dadku weydiinayo waa maxay dadkan aan gudaha joogin ama ha Soomaalida kale geeska Afrika ka dubay Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida oo siyaasiyiinta mucaaradka ee hadlaya ay banaanka u joogaan ba la isweydiinaya marka afayeen arrintaas maxay ka dhigan tahay codka hoos buu dhacay horta la soco Mustafa marka su'aasha iyadoo kale uu ku soo celi khadka internetkaagu inuu hoos jiraan u malaynaya codkaagu wuxuu sameeyay wuu isku darsamay hadda si fiican ma qab maqashaafayaan hoos buu jiraa weli waan hoos buu jiraa codkaagu sawirkaagina wuu noqday si fiican baan ku maqlayaa ha waa cadaani waa waxaan malaynayaa waa internetkayga laakiin Axmed si fiican buu ii maqlaa أحمد سفي عم بيجي مقلع ما يمقى شافين ها كودا كم بقلع ها أفيانا وحكرة سياسيين معارض كدولة الديان كصومالي ده وحيكون مقنعين بنانك تذكر شعب كهانا وحيشوغان أوغادينيا تذكر شعب كوحيلين جودها ما أنتي اللي يمات سيد الصومالي ده كلا درس صوماليا هو شوغ يكوا صومالي ده كلا جيس كافر كشوغ أنتي جودها اللي يمات ده معلوم مرمو جودها وهالك سياسات الله يسوق قبته ما حب جودها الله بسوا maxaa banaanka loo jira oo dawladdiina gudaha u joogtaa mucaaradkuna banaanka u jooga sidoo aragtaa arrinta waxaan aragnaa inay taaf dadku fahmi waayaan ma aha waa xogogaal isha macallina Ethiopia ma ogolo xorriyatul qowl xaqa wax cabirida iyo xaqa expression ka la yiraahdo xaqa saxaafadda ma ogolo حقا إن أسمبلي يحزبية إن بنابح سمايسو إن حزب سمايساتو إن أيديولوجيكالي أوجدوا أنا تكاليسكا إن سوق بسراء يجاي أو حر الله ما أقوله سومالي هو حر سومالي لا أنت عارف كذا الله هذا كذا جمهورية الصومالية الله هذا كذا كينيا مدحوينه هذا ما تقول الله الله قابض ده نيره تشيكشيا قابض ده أنا ما ممكن أشوفته دلنيره دي فيسبوك يا تيك توكر كا يا واحد dhalinyarada meelaha ku neefneefsata yaa ka wada qaxday waxa yaab ka dhacay nin hadda suuqa laga soo qabtay ama NGO meelaha wadwada jiray baa intii la soo qabtay ummadan u tali la dhii hawlka weyn buu madaxa gelin faas dictatoria inuu boqortooyo abiil ka dhaxlay ay tahay oo kala uu la soo baxaya markaasuu shacabka codka iyo afka iyo sanka iyo gacmaha iyo lugaha inuu ka xidho doonaya oo xorriyadda ka qaado oo cabsiyo oo xagga dhaqaalaha u fadhiisto oo xagga shaqo helidda u fadhiisto oo maxkamadaha loo fadhiisto oo sharci beena loo fadhiisto oo booliis corruption loo fadhiisto oo muxuu ahay amni beena loo dhex fadhiisto marka waa qol mugdi ah dhulkeenu marka ruux kasta oo enlightenment samaynaya inuu wax iftiimiyo ama aqoon iyo saxaafad iyo xorriyad qowl soo kordhiya doonaya ama siyaasad iyo muxuu ahay tartamid soo kordhiya jeel buu geli marka inaan banaanka ka soo hadallo oon xaqa ku adilno oo saxaafadda u marino oon bur iyo xoog iyo qowlba soo qaadano oon ummadda ka dulqaadno muxuu ahay gumaysiga arad kiilo iyo gumaysiga buurta yare muxuu ahay
ufadhiya buurta yara la dhaho engineer meesha buurta loo yaqaano garab cas buurta garab casana waxaa noo fadhiyaa dictatori local ah Addis Ababana waxaa noo fadhiyaa dictatori federaal ah marka labadaa shaytaan in laga qabto weeye dadka kolkaan baa iman karaa inuu ra'yi aakhar iyo ruuxa kaa ra'yi duwan inuu warkiisu yimaado oo shacbigu codkiisa banaanka keeno oo hal abuur yimaado markaasuu iman karaa aad baa umahadsan tahay afhayeene si fiican aftahan baa tahay oo eedda waa iska difaacaysaa laakiin waqtiga ayna hayo su'aalo badan waan ku weydiin lahaa injineere axmed cabsiye injineere waxaa laydinku eedaynayaa idinka iyo dadka mucaaradka aba caddaan su-aashan uu qaatay oo kale un weeye waxaad sugaysaan inaad sabab laydinka soo magacaabo sida kuwan lagu soo magacaabay ay ku yimaadeen oo dadkeenu in idinka inta aad sabab la heshiisaan iyo isbeddel abiye ama uu yimaado oo meesha laga saaro maamulka abiye sida dhaqanka Ethiopian-kana ahaa in intay meesha ka saaraan haddana idinku aad ku timaadaan oo idinku markaad timaadaan aad dhahdaan isbeddelkii 2026 dhacay sida loo leeyahay isbeddelkii 2018 dhacay sida loo lahaa isbeddelkii 2009 dhacay sida loo lahaa isbeddelkii 2007 dhacay qolo walba qolada ka horreysay u raaxiseen marka ma aragtitaa ka duwan baad haysaan oo in intii kor laydinka soo magacaabo aad dadka madaxa kaga fadhiisataan aan ahayn mustafa horta waxaan rabaa inaan dadka la qabadsiiyo Ethiopia dhaqankay u taalo Ethiopia dhaqan bay leedahay aan isbedelayn sababta Ethiopia maalin walba maamulka yimaada loo afgambiyo ama looga hor yimaado ama isbedelku uu u yimaado aan haddana isbedelkaasi u shaqeynayo hal arrin weeye waana wax ku xidhan culture-ka Ethiopia haddaad moodayso Soomaalida inay tahay ciladu hadda waxaanu ku jirnaa ururo kale oo mucaaradka Ethiopia oo dhan ka kooban waxa la wixii Ethiopia mucaaradkeeda taqaan hal qof miyaa gudaha ka jooga maya kama joogo waxay ku tusinaysaa waxaan horta Soomaali kaliya ha ku eedaynina hana soo bandhigin Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliya iyo Soomaalida Djibouti iyo ha soo soo bandhigin waxa weeyaan Soomaalidu waxa ay la kiil tahay oo ay la culture kula jirtaa oo ay la qabtaa dhibaatada ay la qabtaa la cudur tahay Ethiopian-ka mucaaradka deegaanada kale oo dhan bay la macnatay Jawaar aaway Iskeel Gabisa aaway Dedeta Ayara aaway amaan walaaway adam kabisa aaway ragii ah taqaanay ma jiraan bannaankay kulligood joogaan maalin walbana waanu kulannaa sidan aan u hadlayno bay iyaguna u hadlaan sidaan bayna qoomiyadahooda ugu hadlayaan dagaalada uga hadlayaan dhibaatada uga hadlayaan Jawaar baad ogeyd wuu galay Axmed Cabsiyaad ogeyd wuu galay Cadaan iyo Maadi baad ogeyd way galeen annagu aad baan u soo dhaweynay groupka anagu ku jira shakhsiyada anagu dadkii waxaan aaminsanaa war dagaalka inaga daayo ummadeena tii weyneed way burbursan tahay tii guduhuna tabar ma haysay bal intaynu horta salka dhigayno xilligan dagaalka inaga daaya bal aynu nabad ku dayno dadkii lahaabanahay laakiin hadda oonalaf anaa ka horeeya sababta oo ah waxaan ku cashir qaatay oonalaf way gashay waan soo dhaweynay waan u sacabaynay dagaal adag baanu garab orodnay garab istaagnay waxaanu rajaynaynay in dagaalka ka dhamaanayo ummadda Soomaaliyeed dictatoriyadu waad ogtahay waxa lagu bilaabay waa kan maanta afayeenkii isbahaysigu ahana afayeenkii oonalafna ah uu nala joogo maanta banaanka ka joogo wadanka waxa ka dhacayna waa kaad weyn dhammaan heshiisyadiina laga baxay waxa weeyaan marka walaal waxaan rabaa inaan dadka la qabadsiiyo ciladu cadaan ma aha Cabsiye ma aha Maadey ma aha Axmed Xasan ma aha Axmed Cali ma aha Faarax ma aha Mustafa iyo nin kale toona ma aha ciladu waa Ethiopia sidoo afayeenku sheegay xorriyad qowl ma jiro ikhtiyaar doorasho ma jirto xulasha jirta san ka hadlaynay qofkii hadla waa lagu tacadiyaa waa la dilayaa waa la xirayaa systemkii ma furfura ganacsi furfuran ma jiro siyaasad furfuran ma jirto marka walaal ciladu ma aha Soomaali kaliya annagana xaq waxaan naloogu leeyahay in aliyaala inta aanu ka hubinayno ummadda Soomaaliyeed iyadu isdoorata ama ummadda Soomaaliyeed Ethiopia hadday isu afgarowdo banaanka istaagto halganka iyaguna waa soconayaa sida baan u hadli isbedel kale hadduu yimaado sidaanu rabno u soconayna yeeri meeyay inta nafti nagu jirto inta baan wadayna injineer su'aasha inaad soo koobto 30 sekunde soo koobtaan raba idinku ma waxaad sugaysaan inaad sabab laga soo magacaabo intay qolo qabsato in laga soo magacaabo sugayna mana dhisaba joogno intay qolo kala qabsato isbahaysi isla tihiin inaad sabab laga soo magacaabo ma sugaysaan
أستاذ رجع تيرني أنت كركي مدام إن بربي إنك أنا لقي صومك على ما تسويسه eeg annagu isbahaysiga aanu gelayno isbahaysi annagana loo yeedhinayo maaha waa isbahaysi aan annagu dhisnay annagaan dhismihiisa kow ka تبتا أم بيلي سيدا أم بيلي مصطفى تيم كلا جوجا أنا كرك ميس كان فردنا عداني يا أحمد عبسيو محاد ربطان ميس كان فردنا أنا وحي كلا جوينا مصطفى مركو يمادي وحو خد بدي وجه هو الرئيو يحيلي برلمان كديان كوحان سمين دونا إنه هير فدرال كردينو إنه كان سمينو فينش بان كبدل دونا wadadii inaad haysaan ma laga yaabaa aniga iyo Mustafa waxaanu ku kala duwanahay Addis Ababa iyo Diridhaba markaanu tagnay Mustafana ninkuu ahaabuu noqday anna ninkaan ahaabaan noqday waad ogtahay hal isha kama qayb qaadan maalintiiba diyaaradan dib uga soo raacay halka aan maanta fadhiyaan ku soo noqday waxa la ii ogolaa xil waxa la ii ogolaa dhaqaalo waxa la ii ogolaa mansab waxa la ii ogolaa awood iyo sharaf waxa la ii ogolaa guri waxa la ii ogolaa siyaasad وين دي waxaan ku umaynaan socon waan hayaa qoraaladii aan qoray aad baa u maasantahay injineere 5 daqiiqo baa inoo hadhay cadaani baan markuu soo laabanaya afayaan cadaani barnaamijkeenu waa gabagabo markii la joogo dawladda soo wajigaaga dadka waan ugu talagalay insha Allah injineere cadaani afayane waxa jira dadkii waa la kala garan laayahay yaa gobonimo doona yaa gumaysi la ciyaara waadaga arkay qolo calankii oo la footo adigu sheegtay oo waan sharaxmaynaa oo xafiisyada oo la fuweerays nin oo la foo calankii oo la footo oo xafiiska oo la fuweeraya mustafihi de adogayda madaxweynaha aylaha oo la baan burburinayay Nairobi ka yiri ur walba oo la dagaalamayna oo la fnay ku aasaysantahay gobonimo doon odogay in nidaamka ay ka tashiga ay ka hadleen inayna ummadda Soomaaliya hatta ka hor buu ka hadlay uu sheegay in ay ka tashi u soconin oo ay rabaan hadda in Ethiopia intay dhex galaan wax la qaybsadaan waadiga arkay codkiisa asagoo leh waxaan rabaa intii la gumaysan lahaa dal madax bannaan baan rabaa inay aan helo say wuxuu jiraan afayeen wareerkan xaq ku jiraan wax waan u soo dhaadhici arrintan injineerku ka hadlay ee tiri waxa ka soo magacay baashi annaga isbahaysiga midnimada iyo ayaka talinta Soomaaliyeed u halgamaya inuu dhawaantan yagleelay wuxuu suurad gelin doonaa in markii koobaad fi taariikh in dhulka Soomaalida ee Somali State Soomaali galbeed ogaadeenaya inay gacanta dadka Soomaalida soo gasho oo ayna shirkadda ban noqonin yaan xaqiijinaynaa horta waa qodob waxaa kaloo aan xaqiijinaynaa go'aanka horjoogahooda iyo madaxdooda iyo siyaasiyiintooda inuu go'aankaasi shacbigooda iyo jigjiyad ka dhex irgalo aan arad kilo iyo amis kilo midna laga soo magacaabin siin iyo saad waa la kala saaraa manihin BB manihin qolo ay kaniisadda evangelican ku samaysay manihin qolo in mushaara deydaysa manihin qolo nololla manihin qolo yeeriska u nugul manihin qolo heeriya saaranta oo la raranayo dadka Soomaaliya inay sayid ka noqdaan dhulkooda saamigooda iyo xaqoodana Ethiopia si cad uga soo goostaan oo sayid aan lala qaybsanin go'aankooda iyo dhulkooda noqdo ayuu isbahaysigan iyo ururka oo la fu dagaalamayaan waa qodobka kale Mustafa dhaha ya gobonnimaan rabnaa ururka iyo raggii la soo aasaasay Siraaj nationalismka Soomaalinimada aaminsana way ku kala boodeen kulligood oo la ka soo way ka ra'yi duwan way naga soo horjeedeen oo la rafna ururka kaliya sodonkiisana u dambeeyay ee Soomaali nationalista oo xabjir ah oo Soomaalinimada ku weytaay oo Ethiopia u taqaano oo reer galbeedku u yaqaano oo caalamka iyo diblomaasiyadda u yaqaanaan buu ahaa si cad buu Mustafa uga soo horjeeday u diiday goormuu Mustafa hadduu watani yahay ururka oo la inuu jilxana muuse ogolaadeen ururada Soomaalidu inay diciifaana muuse ogolaadeen midnimada ururada Soomaalida iyo midnimada siyaasiyiinta Soomaalida lama dirireen waxaa kaloo aan ku arkay garba loo islaam baa leeyahay isagoo dhahaya waxaan ahay ogaadeen yaa ku haysta ogaadeen inuu yahay ma diidine laakiin intuu madax ka ahaa dowlad deegaanka Soomaalida
burburka iyo kala fogaanshaha qabiilka ogaadeenka dhexdiisa uu Mustafa ka diyaariyey fi taariikh kontonkii sano ee u dambeeyay weligeed mayna dhicin waxa dhacay marka labada qodob ee hadda la wareejinayaba ogaadeen baan ahay iyo Somali nationalistaan ahay labadaba falkiisa iyo iimaankiisa iyo qowlkiisa iyo taariikhdiisa way ka soo horjeedaan afayane Mustafa ma joogo hal arrin baa runka intuu sheegay waagii isagoo isqarinaya inuu muxuu ahaa markaan dagaalamayna ee hore inuu qoray maqaalo Ethiopia naqdinayo oo halgankan oo helinayo waa sax isla isaga baa wuxuu qorayaa maqaalo uu kula dirirayo ONLF oo uu leeyahay hala baabi'iyo iyagoo asagoo hadlahayaad ogeyd isagoo muxuu ahaa Soomaaliya ku kaca lahaabad ogeyd isagoo Soomaalida iyo qabiilka ogaadeenka isku diray ayaad ogeyd marka ninkani waa hebelow diina badida waxa la muxuu ahaa nin baa lagu yiri hebelow diina badida Mustafa maalinba kalarku rabu yeeshaa marka nationalism afayane waa maasantahay Mustafa ma joogo isma gaamana difaacaya halkan inuu koor fadhiyo iska difaacaya fiicnaan lahayd marka aad baadan dee u aadaysan adiga iyo injineer Axmed laakiin waa madaxweynaha deegaanka oo shakhsi goono meel taagan ma aha xuquuq wad u leediin idinkuna urur mucaaradatiin inaad eedaysaan laakiin haddana meeshan ma joogo iskama difaacayo afayane waxaa kaloo jirta taas waa sax haddaad eedaa noqday aad leedahay nationalism iyo taasaad ka diday waxaa jirta qolo ONLF baa nahay leh oo calankii wadata oo xafiisyadii ururka ONLF xidhay xubnihii ururka ONLF xidhay oo xafiiska weeraraysa oo muuqaalo cadayna laga hayaa qaar ka mid ah iyagoo saxaafadda la hadlayo oo leh gabdhaha la xidhay annaga xidhnay waa la garanayaa dad la garanaya weeye marka cadaanina dee waa kan marka mushkiladdu xaggay ka jirtaa dhibku waa maxay isku dhex qaskan qasan taa malaha afayeenka anaa kaga fiican inaanu garqaado labadooda bal waayaa ku socon jiray eeg horta halgan marka la galo Iran waxa ka dhacaya waa adiga arkaya raggii ugu waaweynaa ee wadanka xukumayay qaarkood baa u shaqeeya cadowga iska caadi cadowga waxaas wax weyn ha u arkin nin maalin walba sandareere iyo carab dhaq raaca oo cadowga u shaqeeya lama waayo cadaanina taas eed kuma leh dee ninkii fiicnaana wakaa ka soo baxay qaadan waayey wixii meesha yaalay ninkii sandareere iyo carab dhaq raacayna waa kaa raacay marka in uu qofka de waa lagu amrayaa oo laf baabi'i baa la leeyahay marka mujray xarbi baa la yidhaha waa wax caadi ah marka halkan umadi gasho maalin walba nin luuqa ka baxa oo intuu cadowga la shaqeeyo kuuna dhex jiraa way dhacdaa nin fikir kolkii hore halgamaa fiican ahaayo oo aaminsanaa oo dana shakhsiyeed u nuglaadaana ma wada eedaynayna ragga gudaha ku jira rag badan oo waxa jira kolkii hore halgan ka dhab ahaa hal dhiigooda u soo horay dagaal badan soo galay waddanka inay xoreeyaan ay ka go'nay laakiin nuglaaday oo dana shakhsiyadeed iyo carab dhaq iyo in yaroo hanti iyo waxyaabo dana gaara u nuglaadayna way ku jiraan marka dee ONLF waa taqaanaa anigu nin siyaasadda hadda ku cusub ma yihi ilaa 1993 baan ku soo jiray imise jeer baa guruub dhuunteen oo Addis Ababa tegeen maxayse ka faa'iideen kuwana waa kuwii kale oon waxba caddaanaha ku mashquulin ereygaasaan qabaano aad baa umaasantahay injineerku siduu sheegay waxaa weeye qoladan waxaa sameeyey qolada la yiraahdo neebe ma ONLF ay neebe samayn kartaa jirta waxaa sameeyey xisbiga BB-da ee Mustafa uu horjoogaha u yahay ee jigjiga jooga yaa sameeyey marka waana qolyahan is haynay xisbigana talada dalka deegaankana isku haynay qoladan la yiraahdo neebe iyo BB-da kore iyo Ethiopia maxaa la aragtiilan waxaan isku haynay aya ka talinta dadka Soomaalida iyo madax banaanidooda isku haynay marka labada qolo inta u shirkooda waxay dhahan jamaacadan ONLF waa aqoonsanay sidoo injineerku sheegay taliyihii waxaa la qabtay taliye Iiraani ah oo xukuma 60,000 oo nin generaal xukuma yaa u shaqeynaya muxuu ahaa qoliyada la diriis marka afayeen si fiican baan u fahnay waan soo gabagabeynaa barnaamijkeena daqiiqada dheeraadaan ku darsanay hal daqiiqo baan injineer Axmed u siinaya hal daqiiqana aan ku siinaya injineer maxaad ku soo gabagabeynaysaa barnaamijkeena halka daqiiqo kugu dambeeya ilbirqsiyada kugu dambeeya ummadda Soomaaliyeed xaaladooda abaarna way ku jirtaa bal adoo soo koobayo daqiiqad dhaafin maxaad anigu dadka Soomaaliyeed iyo waxaan hadda xulashada anu doorasho ma aqaaneen socdo waxaan kala talinayaa saddex arrimood inay ku dadaalaan
horta waa midda koowaad qof ajnabi ah oo aan deegaanka u dhalan xaq u male inaa waddanka laga soo xulo anuu odhan maayo laga soo sharaxo laga soo xulo sidaas darteed shacabka Soomaaliyeed waa inay arrintaa ka halgamaan midna fariina halkan nin baan uga gudbinayaa Sheekh Ibraahim la yidhaaho urur aan Soomaalidu lahayn urur kama noqonayo deegaanka hadduu urur samaysanayo xaq buu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed xaq buu u leeyahay laakiin urur walooya inuu intuu soo qaado yidhaah waddan deegaanka laga dooran ma uuna fahmin arrintaasi waxaan u malaynayaa sheekha way hoos martay arrintaan aad uga fiirso ummadda Soomaaliyeedna midda ugu dambaysa saddexaadan ku gabaynaya waxaan odhanayaa ummadda Soomaaliyeed war laydiin hadli maayo maalin walba una idinku baraaruga oo mustaqbalkiina ka fikira oo dhalinyarada iyo culimada iyo waxgaradka iyo odayaashu hadla oo wax iska celiya dadka haddaad wax iska celisaan cidna idima gumaysan karto cidna idima xukumi karto waxna cid idinkuma qasbi karto waan ka baxay aad u maasantahay afayane hal daqiiqo oo saa injineerku usoo koobay adigu bal hadalka ugu dambeeya tabinayso maxay tahay marar badanna insha allah ona waad kusoo noqonaysaan hadduu ilaahay yidhaahdo waa sidaa doorasho ma jirto onalaf kama qayb gelayso dadkaasi onalaf ma matalaan bb baa samaysatay shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa isbahaysiga ka talinta Soomaaliyeed onalaf iyo golaha danta Soomaaliyeed ay sameeyeen iyo xooga kale oo horu socda oo taxaalufay waxaan doonaynaa inaanu ka dulqaadno dadka Soomaaliyeed heeriyada danta guud in loo halgamay rabtaa carruurtiina iyo ubadkiina iyo magaaladiina iyo jigjiga iyo calan iyo dowladnimo iyo nolol in loo halgamay rabtaa samada iyadoo saxamada haba saaran ka soo daadan mayso ninka dabarka idinku xidhayana inaad orodaan idinku taageeri maayo ninka hurdadiina iyo kala daadsanaantiina iyo horseed la'aan iyo xisbi la'aan iyo dooda la'aan idinku gumaysanayana inaad is-aamushaan diyaarisaan idinku diyaarin maaye inaad kacdaan baa la rabaa inaad taageertaan baa la rabaa isbedelka inaad xaqiina difaacdaan baa la rabaa inaad u xidhantaan baa la rabaa inaad ubadkiina uga tagtaan baa la rabtaa qowmiyadihii inaga dhega cuslaa ee inaga nacfi badnaa ee Itoobiya ku hoos noolaaba diidan sida billaahi calaykum cid aan idinka ahayn dantiina cididiina soo aan ahayn kuma xoqi karto cididaada cidi aan ahayn kuma xoqi karto danta guud u soo jeedsada magac Soomaaliya iyo af Soomaali kaliya ayaan lagu khaldan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad umahadsantahay intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii falanqaynta ayaan ku eeginay xaaladihii siyaasadda ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale sheegashooyinka doorasho ay ka qayb galayso ururo aan ka mid ahayn oo ay maamulka dowlad deegaanku dabada ka riixayaan qayb ka mid ah dad ay soo abaabuleen barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mustafa Maxamed Cilmi waxaana marti igu ahaa afayeenka ONLF Cabdiqaadir Xasan Biixi Cadaani Hirmooge iyo sidoo kale Axmed Cabsiye injineer Axmed Cabsiye oo ka tirsan golaha sare ee isbahaysiga Soomaaliyeed xubin sarena ka golaha kana mid ah xisbiga golaha danta Soomaaliyeed waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo bahda wakaalada wararka ee ona sidaas iyo nabadgelyo